بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadweynaha ku kulma bartan ama barahan bulshada qaybtan Facebooka aad baan idin salaamayaa. Salaam kaliya laaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib caawa waxaan video clipkan igu kalifay ama aan kaga hadlayaa arrin dhowrkii bilood u dambeysay ka jirtay gobolka Sool oo aan ka aamusi kari waayay. saas darteed waxaan jeclaystay caawa inaan video clipkan duubo kulana share gareeyo dadka reer Laascaanood intooda maqan iyo intooda joogtaba ee ku kulma bartan Facebooka. sida aad ogsoon tihiin ama reer Laascaanood oo dhan ay og yihiin magaalada Laascaanood waxaa muddo dhowr iyo 20 sano ah ka jirtay shirkad light oo magaceeda la yiraahdo Lesco oo leerkiis bixin jirtay. runtii waxay ahayd shirkad marka loo eego dhinaca korontada quality-geedu aad u fiican yahay oo aan 24 hours ka tagaynin aadna waxa qabtirtay baahidii korontada ama leerka ee magaalada hadday noqoto meheradaha iyo guryahaba. aad bay u mahadsan yihiin waan ku ammaananaa shirkadda leerkeeda quality-ga leh ee tayada leh. wuxuu ahaa leer qaaliya maadaama ay magaalada shirkad kale jirin qiimo kasto ay yiraahdaan waa lagu khasbanaa dadka reer Laascaanood oo ku iibsanayeen halkii kilowatt wuxuu ahaa leerkaas $1 halkii kilowatt wuxuu ahaa $1 waana lagu iibsanayay sababtoo ah shirkad kale ma jirin. ma doonayo inaan videogan clipkan wax dhaleeceena ama hoosa inaan ka hadlo oo shirkadda aan ku dhaleeceeyo Lesco. waxaa timi muddo 20 sano kadib haddeerto waxaa timi oo muddo dhowr bilood ka shaqeysay magaalada Laascaanood shirkad magaceeda la yiraahdo Gurmad Solar System Energy oo ku shaqeynaysa cilada waxaan leeyahay cadceedda oo korontada ka dhalinaysa cadceedda. niman khubaro oo Chinese oo dalka u dhashay China baa yimi gobolka arrintaana ka hirgeliyay. waxaase shirkadda iska leh in u dhashay gobolka Sool oo runtii ah ganacsade reer Laascaanood oo lagu magacaabo Maxamed Jabbutawi. runtii waa nin ganacsado dhalinyaro ah waxaan dhihi karayaa waa ganacsatada gobolka wax garadka ah ama fikradaha ee doonaya inay dib ugu soo celiyaan dadkooda wax bulshadooda wax u soo celiyaan haddii maalgashi noqoto haddii ay noqoto horumarinta gobolka oo ganacsiyo badan soo kordhinta iyo waxyaalo noocaas ah. waa nin maskaxdiisa runtii fikraya wuuna ku mahadsan yahay. ilaahayna waxaan uga baryayaa maalkiisa iyo maskaxdiisa iyo cimrigiisa iyo caafimaadkiisa inuu barakeeyo. intaa kadib waxaa lagu daafuray shirkaddii Gurmad xaflad lagu daafurayo oo runtii si loo soo abaabulay. shirkaddii waa la furay waxayna sheegtay oo suuqa soo gelisay qiimihii korontadeeda iyo quality-geedii iyo waxyaalo noocaas ah oo suuqgeena. waxay tiri halkii kilowatt leerka yaga shirkadda Gurmad waa 0.3. marka kadib shirkadda Lesco waxay tiri maadaama shirkad kale timi iyagoo islahaaba shirkad kale baan meesho Laascaanood oo aan ku fakarayn ismaysan lahayn Laascaanood baa maanta la idku helin doonaa oo shirkad kale la gorgortami doonta. haddana way dhacday alxamdulillah oo way timi. marka kadib shirkadda Lesco iyaduna qiimaheedii hoos bay u soo degtay oo halkii uu ka ahaa halkii kilowatt 0.1 waxay ka dhigtay 0.5. shirkadda Gurmad leerkeedu waa 0.3. runtii
waxyaalo badan oo aan sheegayn oo shirkadda leeska lahayd markii shirkaddani timi way meesha ka baxeen shirkadda leesko oo shacabkii xor buu noqday dadkuna iyagaa la baryaya maanta awal shirkadda dadku baryi jireen laakiin hadda dadka reer laascaanood baa la baryayaa xawayaan hadal isku daaline adduunka ganacsiga waa ka jira waana la ganacsadaa shirkadaha lagu ganacsadaa laydhka lagu ganacsadaa biyaha lagu ganacsadaa dee adduunka oo dhan baa ganacsigu ka jira ganacsigu waa wax xora oo xalaala xaraan maaha in la ganacsado in suuqa la iska qabsado xaraan maaha laakiinse waxaa fiican in loo ganacsado oo loo tartamo si dhib yar oo aan dhib lahayn borobaleyna lahayn cadifadna lahayn xumaanna lahayn gacanka hadalna aan lahayn in loo ganacsado waa fiican si aqoonaysan oo aad ganacsigaaga ku horumarin kartaa jirta oo marketing ah oo dadka aad wax ka iibin kartid baa jirta waxyaalaha dadka Soomaaliyeed ka khaldan ama haddaan nahay reer laascaanood si khaldan baan wax u iibinaa ama reer hebel ha noqoto ama qof halkan ka soo mar siyaasadda wax lagu iibinayo gobolka Sool shirkadda intaa jirtay ama shirkadaha intaa jiray ay dadkan ku haystaan oo wax aan aqliga geli karayn marka la yiraahdo guriga hebel iyo guriga hebel ayaa iska leh iyo maxaad leerka u saaraysaa dadka adduunka waxa la qiimeeyaa waxa lagu kala iibsadaa right anagu right baan ku iibsanaa haddaan nahay bulshada reer Sool halkan ka amaani maayo shirkadda gurmad waxna kaga dooni maayo shirkadda leeskana ku dhaleecayn maayo wax xaqiiqo ah baan sheegayaa laascaanood iyo ummadda shacabka reer laascaanood waxaan farayaa rayd wax ku iibsada rayd wax ku gashada leesko waxaan leeyahay dhowr iyo 20 sano laascaan ka ganacsanayeen oo aanu idin khasbanayn oo aanu leydhkiina isticmaalinay maadaama ay timi shirkad kale oo leydhka ah oo leydh jaban aanu helnay anagu rayd baan wax ku iibsanaa qabiil wax ku iibsan mayno adeero wax ku iibsan mayno waxna bari mayno waxbaan iibsanaa anagu shirkadda gurmadna leydh ka bari mayno shirkadda leeskana leydh ka bari mayno lacagteeda wax ku iibsanaa meeshii noo jaban qiimaheedu wacan yahay macquul yahay discount leh oo ratekeedu jaban yahay baan wax ka iibsanaa shirkadda gurmad waa 0.3 waxaa dhacday haddaba hadeerto problem ah in marka ay tiraahdo shirkadda gurmad meel wax geli ay shirkadda leesko problem ka samayso oo halkaasi foodo iyo dagaal uu ka dhaco oo qofkii meherada lahaa oo le ka bixiyo leydhkiina leydhkan kalaan gashanaya ay jaban inay haddana ku dagaalamaan oo ay shaqaalihii kale ee shaqaalahan islaayaan hadaan reer laascaanood nahay waxaan doonaynaa xasilooni in lagu ganacsado nabadgelyada la ilaaliyo bulshada aan cunaqabatayn ganacsiga aan la isku khasbin annagu qiimaan iibsanaa ta koobaad aanu qiimaan iibsanaa ta labaadna qabiil wax ku gashan mayno ta saddexaadna xor baanu nahay annagu xor baanu nahay shirkadna bilaash wax noogu gelin mayso lacagteedaan isticmaalaynaa qiimihii jaban baan ku gashanaa qiimihii jaban baan wax ku gashanaa waxaan ku kala dooranaa maanta gurmad iyo leeskana oo aan leeska ku dooranaa ma jirto shirkadda gurmad waa shirkad yar oo dhowr bilood shaqeynaysay laakiinse la timi marketing bay la timi leesko waa shirkad 20 sano laasaan ka shaqeynaysa laakiin wax marketing ah iyo wax istaraatiijiyad ganacsi oo u yaalay hore iyo haddaba ma jirto annagu rayd baan wax ku iibsanaa qiimihii jaban baan wax ku qaadanaynaa laakiinse waxaan faraynaa labada shirkadood inay si nabadgeliye ah leydhkooda dadka ugu geliyaan borobalem aan halkaasi ka imaanin dadkuna ay xor yihiin maanta haddaan idhaahdo leydhka iga jar oo leydhkan kale ii soo geli xor baan ahay anaa xor u ah wixii halkaa ka yimaada ee kale ee dheeraaday waa khalad in la dagaalamana maaha inahaasaan kusoo koobayaa sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin